wanaagsan dhageystayaasha iyo daawadayaasha aynu jecelnahay oo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa xogta suuqa media oo aad kala socotaan baraha bulshada aynu ku leenahay internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo aaladaha kale ee baraha bulshada. Dhageystayaal iyo daawadayaal, xogta suuqa media waa warbaahin toddobaadle ah oo idin soo gudbin doonto inta badan xaaladaha guud iyo kuwa gaar ahaaneed ee dalkeena hooyo, kuwaasoo isugu jira siyaasad, maaweelo dhaqan, caafimaad, waxbarasho iyo ganacsi, taasoo ujeedka guud uu yahay kobcinta fikirka, wadaniyada, dhaqanka iyo isku xirka garaadka guud ee ummadda Soomaaliyeed. federaalka kumeelgaarka Soomaaliya 2004 ee lagu soo dhisay dalka Kenya uu hogaaminayay Kolonel Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayna u soo guurtay gudaha dalka ayaa maalinta ka dambaysa dalka Soomaaliya waxa uu lugaha la sii galayay isbeddello waaweyn oo lahaa duufaano colaadeed, kuwa siyaasadeed, kuwa dhaqaale iyo kuwa saameyn guud oo dhinacyo kala duwan leh. Isbeddelladaasi waxaa ka mid ah imaanshiyaha ciidamo ka socda dowladaha deriska, kuwa kale ee caalamka. waxaa soo shaabaxay furcadbadeedyo kala ujeeda ah, waxaa abuurmay urur diimeedyo magacyo kala duwan lahaa, dhismaha 4 maamul goboleed cusub iyo 3 goor oo xilka madaxweynaha nidaamka doorashada dadban xilka u kala wareegay. hase ahaatee waxaan wali si waafi ah loogu guuleysan adkeynta amniga, dhismaha ciidamo midaysan oo qaranka Soomaaliyeed leeyahay iyo dhamaystirka dastuurkii kumeelgaarka ahaa. waxaa taagan qonofyo siyaasadeed, kuwa maamul, kuwa amni, kuwa dhaqaale iyo kuwa caafimaad. haddaba si aynu u qiimeyno isbedeladaas hore u jiray isla markaana looga gudbo kuwa hadda taagan, loogana gaashaanto kuwa soo socda, ayaa waxaan doonayaa in aan dib idin xasuusiyo qaar ka mid ah kuwii hore inta aynan u gudbin kuwa hadda taagan. aan idin xasuusiyo waraysiyo xasaasi ah oo aan la yeeshay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dowladda federaalka kumeelgaarka ahaa, wasiirkii kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi, Admiral Faarax Cumar Faarax Qare oo ahaa taliyihii ciidamada badda xilligaasi isla markaana xilliyo kala duwan soo ahaan jiray taliyihii ciidamada badda oo aan waraysi la yeeshay, iyo Cumar Shariif Jeeg oo ahaa madaxii injineerada shirkadii Shifco ee maraakiibta Soomaaliyeed ee uu maamulo injineer Muuye. qaabka ay u dhaceen dowladdan markay istiqlaalka qaadatay 1960 isugu yimideen qaybteedii waqooyi iyo qaybteedii koonfureed dowlad midaysan ay dhisteen ayaa waxaa la sameeyay ciidamada qalabka sida walow horay fikradu ay u jirtay iyo abaabulku ciidamada dhulka la sameeyay, cirka la sameeyay, badda la sameeyay. baddu waxay shaqo bilowday 10kii February 1965 maalintaas oo aad maalintii 6 markabo ugu horeysay midowga Sovieti aan ka helno ay Berbera ka soo degeen. hase yeeshee heshiiska ra'iisul wasaarihii bariga Hajar Cabdirashiid Cali Shamarke iyo janankii bariga Hajar Daawud Cabdul Cusmaan lacag badeedka haddataan ka jiro dalka waxay aas-aasmeen 1993 waxayna aas-aaskooda koowaad ay ka bilaabatay North East Coast gaar oo dhinaca xeebaha waqooyi bari meeshaas ayay ka soo aas-aasmatay. aniga hadda Cumar ahaan xataa waxaan ilaa iyo muddo aan
markaas ku dhex jiray ama aan la shaqeynay nimankaas oo ereydaas degan oo niman macruuf oo la wada yaqaano ah oo dooman waaweyn oo doomankan Bakistaanka la yiraahdo iska lahaayeen oo niman hadda dalkeena qaarkood wax ka ah qaarna hadda taanbo dibadaha ku nool oo systemkan hadda macnaha lagu dhaqmayo dhinacan hadda taan ilaa area garacad ilaa iyo zonahan la yiraahdo garacad ilaa iyo hobyo waa wax hadda taan kaliya oo ku soo cusboonaada laakiin waxaan hore u soo jiri jireen annaga kamid ahayn markabkii ugu horeeyay ee badda Soomaaliya lagu qabsado Farax Omar laba markab oo Usmaan Geediraage iyo la yiraahdo Bintuna Brimo oo aan markaasna aniga aan dul saarna ayaa kamid ah maraakiibta la qabsaday aniga gudoomiye ku-xigeenka IOM waxaan ku kulnay Denmark shirkii mataqaanaa looga hadlayay burcadbadeedka iyo kalluumaysatada xaaladda Soomaaliya ku sugan tahay kuntan wuxuu weydiistay inaan magaalada London ku wada kulanno waxaan rajeynayaa insha Allah taala hadda markaan tago London inaan la kulmo iyagana oo aan ka wada hadalno sidii u kaalmeyn lahaayeen kalluumaysatada Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dhibaatada badan kala soo kulmay xaaladda badda Soomaaliya ee qarribasay burcadbadeedka arrimaha Soomaaliya inta badan waa la hadal hayaa qaadkii wax looga qabanaa ma jira waxyaabaha kala soo qaadeen arrimaha waxaa sidoo kale marti inoogu ah Professor Cabdalla Cumar Mansuur oo kamid ahaa macallimiintii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed isla markaana ah macallin ku takhasusay dhinaca luqadaha sare waxa lagu dhigi jiray af Soomaaliya lagu dhigi jiray markii ay jaamacad ay soo gaaraan maadaama af Soomaaligu uusan buuxin karin erey ahaan aqoonta jaamacadeed laakiin uu karay inuu buuxiyo aqoonta dugsiga hoose ilaa dugsiga sare buugaag ayaa la sameeyay erey bixinaa la sameeyay yani maada kastaba waa la awooday in lagu dhigo af Soomaaliga meeshaasna horumar weyn ayuu af Soomaaligu ka gaaray walow sanadihii ugu dambeeyay 80meeyadii aakhirkeedii yani tayada waxbarashada ay xumaatay dugsiyada sare iyo hooseba taasi ma aha dadka sida dadka qaarkood ay u aaneynayaan af Soomaaliga ee waxay tahay xaaladda dalka ayay ma aragtay ayuu afkana la mid ahaa ama waxbarashada la mid ahayd dalka dhan ayaa liitay waxbarashadiina waa liitay ila macallinka mushaar ku filan ma haysan ardadii si fiican looguma dhigayn marka ardada tayadoodii waa xumeed markii dambe markii jaamacadda inoo yimaada dhibaataan kala kulannay dad oo ma aragtay awal waa fiicnaan jireen laakiin sanadihii dambe waxaan u bilownay inaan ma aragtay basic ahaan aan u dhisno
marka aan baraynaba xataa luqadda talyaaniga oo awal 6 bilood ahayd hal sanaan ka dhignay si luqadna u barto wixii oo ka fakaday oo macluumaad oo cilmi ah oo basic ahna maaragtay uu hanado taasaan u suurtagelisay in jaamacaddii dad badan ay ka soo baxaan oo maanta meel kastoo aan tagana si wanaag aan arko ardaydaas jaamacadda aan ka soo saarnay dalka dibadiisa iyo gudihiisa professore ardayda aad adinku wax bari jirteen waxaad ii sheegtay hadda in loo raadin jiray eray bixin jaamacadda ummadda Soomaaliyeed qaab sidee bay eray bixin ugu raadin jirtay luqadaha